Bismillahirrahmanirrahiim. Kusoo dhawaada channelka Somali Events. Maanta waxaan idiin wadnaa qiso xanuun badan oo dhex martay wiil iyo hooyadii. Hooyo ayaa waxay ifka ka qabtay hal wiil waxayna u jecleed si xad dhaaf ah. Wiilkeeni ayaa ahaa mid aan hooyadiis u wanaagsaneyn wuxuuna ka doorsan jiray xaaskiisa. Maalin ciida ayaa waxaa soo wada baxay wiilkii iyo xaaskiisa waxayna horey u soo wadeen hooyadii oo markaa xambaarsaneyd wiil yar oo labadoodii dhaleen. Waxayna soo aadeen suuqa lagu iibiyo dahabka. Wiilkii xaaskiisa ayaa waxay dalbatay dahab. Markii loo soo saaray dahabkii ayuu weydiiyay qiimaha dahabka waxaana loo sheegay inuu gaarayo 20,000 oo riyaal. Kadib markii uu xisaabtii fiiriyay ayuu wuxuu arkay 100 riyaal oo dheeri ah. Markaa ninkii dahablaha ahaa ayuu weydiiyay waa maxay 100 riyaal oo dheeriga ah. Ninkii dahabka iibinayay ayaa wuxuu ku yiri wiilkii waxaa faraanti dahab ah qaadatay hooyada. Wiilkii ayaa aad u carooday wuxuuna tuuray faraantigii dahabka ahaa. Hooyadii ayuuna wuxuu ku yiri habraha gaboobay oo adiga oo kala ma xirtaan dahab. Hooyadii ayaa aad u ooysay kadibna murugootay waxayna dib ugu soo laabatay gaarigii ay wateen. Wiilkii xaaskiisa ayaa ku tiri maxaa sidan u sameysay? Waxaa laga yaabaa inaysan mar dambe noo qaadin cunuga. Waxay ula dhaqmeen inay u tahay booyas oo kale. Ninkii dukaanka iibinayay ayaa wiilkii ku canaantay kuna yiri maxaa sidan hooyada ula dhaqmaysaa? Kadib wiilkii wuxuu soo qaaday faraantigii dahabka ahaa wuxuuna u keenay hooyadii oo ku dhex jirtay gaarigii ay wateen. Wuxuuna ku yiri hoo qaado haddii aad doonayso faraantigan. Hooyadii ayaa ka dhaaratay kuna tiri ma qaadanayo. Waxaan doonayay inaan farxad ku ciido sida dadka asaagayga ay u faraxsan yihiin. Balse waxaad iga dishay farxadeyda ee Allah kuu dambi dhaafay wiilkaygiiyow. 6 bilood kadib dhacdadan wiilkii wuxuu ahaa mid la tacaala cudur wuxuuna isticmaali jiray daawooyin aan u wanaagsaneyn caafimaadkiisa. Hooyadii ayaa u adkeysan weyday daawooyinka uu isticmaalayo wiilkeeda waxayna ka baqday inay dhibaato u geysato. Waxayna jeclaysatay inay ka daadiso daawooyinka kadibna daaqada ayay ka tuurtay. Wiilkii ayaa aad uga carooday arrinta ay hooyadii ku dhaqaaqday kadibna wuxuu go'aansaday inuu guriga ka soo buriyo. Wuuna ka soo buriyay gurigiisa. Hooyadii ayaa iska ooysay iyadoo ooyinsa ayay wixii ku tiri wiilkaygiiyo Allah ku saamaxo. Akhbaartii hooyadii ayaa muddo dheer la waayay. Wiilkii waxaa ku sii batay cudurkii wuxuuna galay isbitaal. Muddo dheer kadib wuxuu ka soo baxay isbitaalkii isagoo aad u niyadjabsan. Waxaa ku dhacay faqri aad u daran. Gurigii quruxda badnaana waa lagala wareegay gacantiisana wuu ka baxay. Maalin maalmaha ka mid ah ayuu isagoo TV-ga daawanayo wuxuu arkay sheekh ka hadlaya samafalka waalidka iyo faa'iidada uu u leeyahay qofka iyo inuu ka qayb qaadanayo qofka loo barakeeyo risqigiisa. Wiilkii ayaa ku fakiray wuxuuna ogaaday dhibaatada haysata inay kaga timid hooyadii xaggeeda. Wuxuuna isla markiiba ku dhaqaaqay inuu raadiyo hooyadii. Muddo dheer kadib wuxuu u tagay hooyadii oo ku nool qol yar isla markaana ku nool wixii sadaqa ahaan loo siiyo. Markii uu arkay hooyadii ayuu naxay jilbahana ka qabsaday aad ayuuna u ooyay wuxuuna ka dalbaday hooyadii in ay cafiso. Hooyadii ayaa iyadana dhinaceeda ka ooysay waxayna ku tiri wiilkaygiiyo waan ku cafiyay. Kadib waxay ku soo laabteen gurigooda. Halkaas ayaa wiilkii uga bilaabatay nolol cusub. Shaqo cusub ayuuna dib u helay. Deemihii wuuna iska guday. Waxayna wada degeen wiilkii iyo xaaskii iyo hooyadii guri aad u qurux badan. Waxaas oo dhanna waxaa sabab u ahaa samafalkii iyo baarinimadii uu u sameeyay waalidkiisa. Rasuulkeena Muhammad sallallahu wasallam alayhi wuxuu leeyahay raali aanshaha alle waxay ku jirtaa midda waalidka. Waad ku mahadsantahay muuqaalkan daawashadiisa. Fadlan haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe noo saar. Muuqaalkana like noo saar. La soco qaybta ku xigta. Mahadsanid.